Shirkadda maraakiibta Noruego ee laga leeyahay waddankaasi Ruushka ayaa dacwad ku soo oogtay waddanka Norway kadib markii xagaagii hore ay Norway ka mamnuucday shirkadaha waddankaasi Ruushka laga leeyahay ee kalluumaysiga ee lagu kala magacaabo Noruego iyo sidoo kale Murman Seafood, kuwa oo ay sheegtay in xeyndaabka biyaheeda ee dhanka dhaqaalaha ay mamnuuc ka yihiin in ay ka kalluumaystaan iyada oo tix raacayso ama taageerayso qaraaradii kala duwanaa ee cunaqabataynta loogu soo rogayay waddankaasi Ruushka kuwa oo ka soo baxaya wadamada Midowga Yurub. Ha yeeshee shirkadda Noruego ayaa iyadu dacwad ku soo oogtay Norway iyada oo ku andacoonaysa in aysan Norway xaq u lahayn in ay ka mamnuucdo aaggan dhaqaalaha maraakiibta ka kalluumaysanayso, maadaama uu sheegay shirkaddan qareenka u doodayo oo lagu magacaabo Halvard Ostgaard in Norway aysan xaq u lahayn in ay shirkadahani ka mamnuucdo in ay ka kalluumaystaan halkaa, iyadoo uu sheegay in Norway ay ku tumanayso sharciga u degsan reer Norway iyo sidoo kale midka caalamiga ah ee aynan xaqa u lahayn in ay maraakiibta kalluumaysiga ee ay heshiiska kula jirtay ay ka mamnuucdo xeyndaabka laga kalluumaysto. Waxa ayna shirkadda Noruego ku andacoonaysaa in ay doonayso in ugu yaraan loo sii ogolaado inta uu kiiskan socdo in ay kasii kalluumaysato xeyndaabkan dhaqaalaha ee ay Norway leedahay, waxaana lagu soo waramayaa in gal dacwadeedkan ay wadato shirkaddan laga leeyahay waddanka Ruushka uu ka furmi doono magaalada Oslo 26 bishan aynu ku jirno ee Janaayo, halkaasoo ay ka bilaaban doonto doodiisa. Waxayna shirkaddan kalluumaysiga laga leeyahay waddankaasi Ruushka ku andacoonaysaa in ay xaq u leedahay in ay ka kalluumaysato maadaama heshiisyo isdaba joog ah ay kula jirtay waddanka Norway tan iyo 91dii, waxaana lagu soo waramayaa in Norway uu ku andacoonayso in ay xaq u leedahay in qaybta dhaqaalaha biyaheeda ay ka mamnuucdo shirkaddii ay doonto. Waxayna ku waramaysaa qareenka u doodaya dowladda Norway oo lagu magacaabo Kiaja Maria in ay Norway xaq u leedahay in dhulbadeedkeeda dhaqaale ay ka mamnuucdo cid kasta oo aysan doonayn, xaqna ay u leedahay sida uu u saamaxayo shuruucda Norway u degsan iyo midka caalamiga ahba. Ha yeeshee shirkaddan ayaa waxa ay ku doodaysaa hadda in loo sii ogolaado in ay kasii kalluumaysato inta kiiskan ama gal dacwadeedkan go'aan kama dambaysa laga gaarayo. Norway ayaa xuduud badeed la leh waddanka Ruushka, waxaana jirto goobo ka dhexeeya Norway iyo Ruushka iyo sidoo kale goobo u kala soocan kuwa oo ay maraakiibta kala duwan ee Norway iyo sidoo kaleba Ruushka ka kalluumaystaan. Waxaana lagu soo waramayaa dhammaadkii sanadkii tagay ee 2025 in uu jiray heshiis kalluumaysi oo dhex maray wadamada Ruushka iyo Norway ka oo ahaa kii ugu hooseeyay ama ugu liitay tan iyo 1991dii heshiisyadii kala duwanaa ee dhex mari jiray wadamada Ruushka iyo Norway. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.